kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka channelka Dana Media qodobada ugu door korona waxa kamida daawada maxaad kala socotaa heerarka kala duwan ee uu soo maray guud ahaan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo hawlgalo qorshaysan ka sameeyay deegaano kamida gobolka Shabeellaha Dhexe duqeyn dhanka cirka oo lagu dilay wariyaal iyo horjoogayaal ka tirsan nabadiidka Al-Shabaab ciidanka kumaandooska xoogga dalka oo hawlgalo ka sameeyay deegaanka Shabeello ee gobolka Mudug ciidanka xoogga dalka oo shacab ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha hoose u qaybiyay raashin iyo dawooyin akhbaaraadka caalamkana daawadayaal waxaa kamid ah Turkiga oo duqeymo ka fuliyay gudaha dalka Suuriya fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay channelka Dana Media subscribe saar like iyo share la wadaaga aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya daawadayaal ciidanka qalabka sida ee dalkeena Soomaaliya waxay soo mareen duruufo iyo xaalado kala duwan waqtiyada qaar ciidanku waxay soo mareen iyadoo qof ciidana in la salaamo ama wax laga iibsado lagu mutaysanayay dil saasi ay tahay dad ayaa u bareeray inay xaaladaasi oo jirta ku biiraan ciidanka qalabka sida kuna ciidankii shalay mar ahaa dad laga dhuunto ama laga cararo cabsi laga qabo awgeed cadowga ayaa maanta waxaad arkaysaa iyadoo lagu faraxsan yahay safaf dhaadheerna loogu jiro ku beeritaankiisa dhalinyaradii ku dhalatay dalka intii burburku jiray isla markaana wax ku bartay ayaa ah kuwa haatan ku beeraya ciidanka qalabka sida waxaanu leeyahay xeriyo iyo iskuulo la isku qoro taasina waxay ku timid nafhurnimo iyo go'aan adag oo ay shalay qaateen geesiyaal ka tirsan guud ahaan ciidanka qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haatan ciidankeenu waxa uu dirayaa baaqaasi waa maxay muwaadin haddaba muwaadin dal kasta oo leh ciidan xooggan oo dunida ka tilmaaman taariikhdu waxayna baraysaa in ciidankaasi uu wax ku yahay garab istaagga shacabkiisa sidaasi daraaddeed ayay markasta ciidankeenu waxay nagu baraarujinayaan waxaad noo tihiin iyo kaalinta aad naga xigsan kartaan haddaad tihiin shacabka Soomaaliyeed waxaan aaminsannahay in waxa aan raadinayno aan gaari karno kaliya marka shacabkeenuna jeclaadaan nagu kalsoonaadaan misana ayna garab istaagaan dhowr sano u dambeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ku socday dib u habeyn aad u weyn ayagoo awood u yeelan doona inay la wareegaan dhammaan dalkeena Soomaaliya ujeedka hawlgalkan ciidanka xoogga dalka ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha hoose ayaa ah xaqiijinta ammaanka deegaanada shacabka ku dhaqan laga dulqaaday dhibaatooyinkii argagixisada u geysan jireen ciidanka ayaa hawlgalka lagu xaqiijinaya ammaanka deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha hoose ka sameeyay deegaanadaasi oo kala ah Xashooley Waraaboole Doonweyne Kaxarow Buulalow Maguurto Baalgure iyo Cumar Beera ciidanka xoogga dalka ayaa deegaanada hawlgallada ay ka sameeyeen shacabka ku dhaqan waxay u qaybiyeen raashin fudud iyo dawooyin ay baahi u qabeen maadaama ay yihiin dad danyara Cabdullaahi Mustaf Ali Madaale qaran oo kamid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka isla markaana hawlgalka hogaaminaya ayaa warbaahinta ciidamada qalabka sida u sheegay shacabka ku dhaqan deegaanadani maanta hawlgalka ka sameeyeen inay kaga mahad celiyeen dawooyinka iyo raashinka ay u qaybiyeen kuwaas oo ay ka jareen raashinka iyo dawooyinka ay wateen laguna talagalay inay isticmaalaan taliya Cabdullaahi Mustaf Madaale qaran ayaa intaasi ku daray in ciidanka xoogga dalka ay u taagan yihiin caawimaadda shacabka iyo difaacooda isla markaana ay bacsanayaan kooxda nabadiidka naflacaariga maleeshiyaadka Al-Shabaab deegaanka Kunyo Barrow ee hoostaga degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha hoose waxa ku taalay xarunta ugu weyneed ee idaacadda ku hadasha afka maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab waxaana lagu burburiyay xarunta idaacadda duqeyn diyaaradeed ayaa waxa iska kaashaday ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab iyo Africom duqeynta waxa lagu burburiyay xarunta idaacadda ku hadasha afka maleeshiyaadka Al-Shabaab waxaana laga sii deyn jiray fikrada qaldan ee maleeshiyaadka iyo horjoogayaasha ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaldi jireen dadka shacabka xilliga weerarku duqeyntu idaacadda lagu bartilmaameedsanayay waxa xarunta idaacadda afka maleeshiyaadka ku hadasha ka socday mid kamid ah barnaamijyada lagu qaldo dadka shacabka waxaana gudaha istuudiyaha ku sugnaa mid kamid ah horjoogayaasha Al-Shabaab xarunta idaacadda la duqeeyay waxa ku sugnaa wariyaal ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab iyo horjooga ka tirsan nabadiidka saraakiisha ka tirsan kumaandooska Danab oo la hadlay warbaahinta ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in weerarka duqeyna lagu dilay wariyaal u adeegaya maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab iyo horjooga ka tirsan argagixisada
saraakiisha danab waxay sheegeen in duqeynta lagu dilay agaasimihii idaacadda ku hadasha afka maleeshiyaadka oo magaciisa lagu sheegay cabdiraxmaan cali oo magaca afkarashada al-shabaab lagu goran ogaa khaashici wariye axmed dalmar abuwarsama wariye axmed macali aadan sidoo kale duqeynta waxaa lagu dilay horjooga ismaaciil dubad shigshigow oo xilligaasi lagu wareysanayay mid ka mid ah barnaamijyada lagu qaldo dadka shacabka ah. Howlgalkan qorsheysan ayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ka fuliyeen deegaanka Geelgub oo qiyaastii 10 kiiloomitir u jira degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Howlgalkan ayaa yimi kadib markii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka war heleen dhagarta ay maleegeen kooxda al-shabaab iyadoo ciidanku ay howlgalka ku dileen 8 ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab iyadoo qaar kalena nolosha lagu qabtay. howlgalkan qorsheysan ayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ka fuliyeen deegaanka Geelgub oo ee degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. howlgalkan ayaa yimid kadib markii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka war heleen dhagarta ay maleegaan nabadiidka al-shabaab iyadoo ciidanka ay howlgalka ku dileen 8 ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab. saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa waxay xaqiijiyeen in ciidanka ay gacanta ku soo dhigeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab iyo hubkii ay ku dhibaateyn jireen shacabka Soomaaliyeed. muddooyinkii dambe ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo ka dhana kooxda al-shabaab waxay ka wadeen gobolada dalkeena Soomaaliya. ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab gaar ahaan ururka 6aad ee guutada 16aad ee kumaandooska danab ayaa howlgal ballaaran ka sameeyay deegaanka Shabeelle oo qiyaastii 20 kiiloomitir deegaanka Bacadweyne ee gobolka Muduga. dagaalkan kooban kadib maleeshiyaadka argixisada al-shabaab ayaa isaga carray goobtii lagu dagaalamay. dadka reer Bacadweyne ayaa door miira ka qaadanaya jabka argixisada. saraakiisha ka tirsan ciidanka danab ayaa waxay sheegeen inay wadaan dagaalka maleeshiyaadka argixisada lagula jiro isla markaana ay meelaha ay ku dhumaalaysanayaan laga saari doono. ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed danab ayaa gobolada dalka ka wada howlgallo lagu baacsanayo argagixisada al-shabaab. haatan akhbaraadka caalamka wararka ka imanaya dalka Syria ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ay duqeymo ka fuliyeen gudaha dalka Syria. duqeymaha ayaa lala bartilmaameysay goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee lagu magacaabo xoogga dimuqraadiyadda Syria. hay'adda xuquuqda aadanaha ee la socodka xaaladda Syria ayaa sheegtay in weerarkan diyaaradaha ee ka dhacay Sayda oo ka tirsan deegaanka Ansiya ee waddanka Suuriya waa weerarkii ugu horreeyay ee muddo 18 bilood ay fuliyaan militariga waddanka Turkiga. ma jirto wax faahfaahin oo ka soo baxay weerarkani iyo inuu khasaare ka dhashay. xukuumadda Ankara ayaa mar waliba isha ku haysta dhaqdhaqaaqa xoogga Kurdiyiinta ee ku sugan gudaha dalka Syria. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeriya warkii oo aad kala socoteen channelka Dana Media. fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar like iyo share la wadaag asxaabtaada. sidaas iyo nabadgelyo.